muuqda sida runta farshaxan soo saaro miyuusa weeye haweenka sidiisa waa inaanu saara kacnaa salaama ku jooga meeshaad ku sogantiin alula dalula dalula alula lula lula waxay ahayd madal qaran oo madxafka qaranka Soomaaliya uu martigeliyay waa bandhig uu noociisa dhifiya naadir yahay oo hore uga dhicin magaalada Muqdisho bandhigani oo la magac baxay A Window to Hear a Wall waa barnaamij lagu dhiirigelinayo gabdhaha Soomaaliyeed ee active-ka ku ah hibadana u leh farshaxanka gabayga iyo dhaqanka giyiga Soomaaliya wasiirro iyo mas'uuliyiin ka socday dawladda federaalka Soomaaliya iyo marti sharaf kale oo magac weyn ku dhaxlay bulshada ayaa indhahooda ku arkay bandhig ay la tacajabeen oo aad ula dhaceen waxaana hadaladooda dhiirigelinta ahaa ay madxafka ka jeediyeen ka mid ahaa maanta oo ay tahay maalin sabti ah bisha Febraayo 8 2025 madxafka qaranka waxaa sharaf weyn u ah inuu bandhigan soo dhaweeyo oo loogu talagalay sidii loo dhiirigelin lahaa gabdhaha Soomaaliyeed ee farshaxaniinta ah kala gidisan ee wadankan ku nool howlaha ay soo qabteen iyo farshaxanadooda madxafkan wuxuu ku faraxsan yahay inuu bandhigani sii wadi doono muddo muxuu ahaa bil iyo bar ama 2 bilood uu soconayo oo qof walibana markaasayto oo muxuu ahaa ka bogan doono waxyaalaha meesha lagu soo bandhigay marka anaga maanta madxaf ahaan waxa sharaf noo ah in halkan noogu timaadaan oo bandhiga nagala soo booqataano furitaankan anaga soo qayb gashaano aad iyo aadan dhalinyarada Soomaaliyeed maanta halkan wada joogto ugu mahad celinaya saaki waxay yimaadeen waqti hore ilaa ay maanta oo dhan waxa waaye waxay ka qayb qaadanayeen dabaaldega iyo bandhigan sidii loo hirgelin lahaa marka waxaan ku soo dhaweynayaa muxuu ahaa qabanqaabiyaha muxuu ahaa programkan muxuu ahaa loogu talagalay dhiirigelinta gabdhaha Soomaaliyeed aadan u salaamantiin marti sharafta qiimaha badan ee maanta halkan nagula sugan waxaan u joognaa maanta waxa ay tahay waa 8 bisha 2 2025 halkan dhamaantii waxaan iskugu nimaanay inaan ku dhiirigelino hablo Soomaaliyeed oo u kacay dhiirigelinta horumarinta ee ka qayb qaadashada nabadda Soomaaliyeed ayaga oo ku muujiyay ama ku cabiraya dareenkooda dunideed ay u baahan yihiin ama ay uga baahan yihiin dalkooda inay ka dhex arkaan meesha waxaa ku soo bandhignay maanta 12 hablood oo kala duwan mid walbana ku soo bandhigayso aragtideeda dunida nabadoon ee u baahan tahay qaarkood waa artistayaal qaarkood waa sawir-qaadayaal qaarkoodna waa gabayaa marka waxaa sharaf noo ah wasiirada qiimaha badan ee maanta nagala soo qayb galay kuna dhiiraday inay dhiirigeliyaan dhalinyaradaas waliba hablaha ah taasoo aan rajaynayno inay u noqoto iridii dhalinyaro fara badan oo maanta hal abuurkooda la gamban ama la aamusan inay ku dhiiradaan ayagana ay banaanka soo dhigaan kana qayb qaataan horumarinta dalka iyo nabadeyntiisa waxaan ku soo dhaweynaynaa oo aan rajaynaynaa barnaamijkeena inuu noo dahfuro wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo hidaha tacliinta sare oo ay hoos tagto hawshan waan jecel lahayna inuu sii dhiirigeliyo kulley wax badan indhiisa oo ku soo arkay oo toor baan u soo sameynay oo soo wada arkay hablaha qaarkood hore u yaqaaneen qaarkood hadda soo bartay marka waxaa noo sharaf ah inaan wasiir faarax ku soo dhaweyno barnaamijkana uu noo dahfuro wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka gudoomiyaha madxafka gobolka banaadir qabanqaabiyaasha iyo hal abuurka da'da yar ee waliba gabdhaha ah dhammaantiin waxaan idin leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii farxad aad iyo aad u weyn ayay ii ahayd saaki inaan halkan imaado oo aan arko dadaalka weyn ee uu muujiyey madxafka qaranka oo ku salaysan inuu soo bandhigo hal abuurka waxa ku dahsoon ama ku qarsan qalbiyada gabdhaha Soomaaliyeed iyo maskaxdoodaba waxa aan arkay maanta waxa ay tusinaysaa waxa maskaxda ku jiro ee aad u weyn ee aad u ballaaran ee aanan u muuqanin dadka aanay arki karin lana waayay hab lagu soo muujiyo oo lagu soo cabiro
marka inaad ku soo bandhigteen sawir inaad ku soo bandhigteen sawir gacmeed inaad ku soo bandhigteen gabay gaar ahaan waxaan soo dhageystay gabayo af Ingiriis ah iyo gabayo af Carabi ah oo ay da'yar hal abuureen si ay ugu muujiyaan adduunka ayaga aragtida ay ka qabaan English way magaciis waxa weeye Rebirth of Light. When I thought my time had come to die, I rose in steep. I touched the sky. I spark within began to grow. A guiding flame, a golden glow. Through shadows deep I dug and fell, lost in a never-ending spell. Pieces by pieces I broke apart, losing the edge of my heart. Yet lies was born within my chest, a second birth, my soul's request. From pain I shaped a path so bright, and ended sorrow with my light. إذا لم نستطع إلى شوارعك سبيلا، وكيف تعاش الحياة من دون رفقة ومتنفس في الطريق، ومن دون ذاكرة الطفولة وصراخ صاحب المحل والباعة المتجولون الذين يغنون بلحن واحد بلهجة واحدة وصوتهم واحد وترنيماتهم مألوفة. مقدشو ذاكرتي ممتلئة بك بشكل خاص، يتغلغل كل جزء منك يا مدينتي بداخل المسام، وإن كان جمادا أو غصن شجر حتى أوراق الغار وأعواد الثقاب. كيف تمضي الليالي الماطرة دون شباك مطل على الجيران، وموسيقى لكل مقام مقال ومعبر. وسفينتي حين أبحرت لم تفلت الشراع، لم أعرف أي ميناء ستقف فيه سفينتي في الوجهة القادمة، لكنها آمنت بأن السلام الأخير كان سلاما، ولقمة العيش الأخيرة كانت عشاء مباركا لا شك فيه، وأن الرسائل التي كتبت لي لم تكتب عبثا، وأن الحرف يحمل في تجويفه سرا ومعنى مدفوما بالدفء. والغمامة تحادثني من فوق السماء بعيدة لكنها هنا قريبة مني. انظر لحذاء القديم الذي مشيت فيه كثيرا بشوارعك، أعرف أنك متعب مني وتشعر بالغربة حين تشم رائحة الطين. ورغما عن الماضي أنا الآن على أقل تقدير أنظر إليك ولا أبكي. بيني وبين المطر سر أعرفه وحدي، والجدران المحيطة بي في مقدشو. حتى صاحب المقهى يلقي سلاما خاصا لي، على الرغم أنه لم ينبت ببنت شفة أفهمه وهو يفهمني. والطاولة التي بالعادة أكتب فوقها أشعاري تغمرني بحب. وكيف تعاش الحياة من دون المدينة التي تغزل معها صوفا، المدينة التي تبادلك الغزل وتهمس لك بسرها. يا مطر هل لي بصديق واحد لا يفجر؟ الصديق حين الخصام يحب. هب لي صديقا واحدا لا ينسى ويعذر 70,000 مرة. جاحدون حين نقول لا نحبك يا مدينتي، ببساطة نحن نعشقك، نذوب شوقا لك ونكبر بداخلك. شكرا. Because like dhammaanteen hal indhaan leenahay, hal wadnana waa leenahay. So waxaan rabaa in qof walba pieces-ka ka maqan iyo cadadka kale dadka kale ku kala jira in inta la isku keeno hal sawir laga wada dhigo. Saasaan rabaa. qof kasta aragtidu adduunkan ka qabaa, laakiin lama oga aragtidiisa maskaxiisa ku jirtaa. laakiin inaad ku guulaysateen oo ku dhiirateen inaad adduunyada u soo bandhigtaan, dadka Soomaaliyeed u soo bandhigtaan, waalidiintiina oo anaga ka mid ah u soo bandhigtaan nooca umadnimo, nooca adduun, nooca guri, nooca qalbi, nooca xiriir, nooca jacayl, nooca nololeed ee aad jeceshihiin ama adduunyada aad ka aragtaan. runtii sawirada qaar ilmo ayaa igu soo istaagta, waa ku jiriracoodaa markaan arko, iyo qalbiga ay ka yimaadeen sawiradaas, maskaxda ay ka yimaadeen, iyo awoodda aad ku awoodeen in hibadaa weyn ee Ilaahay uu idin siiyey aad banaanka soo dhigtaan. runtii aad iyo aad ayaan qabanqaabiyaasha iyo gobolka Banaadir iyo matxafkaba ugu mahad celinaya. annaguna insha Allah tacaala waxaan ballan qaaday inaan dhiirigelinno haddii Ilaahay yiraahdo. waxaa idin imaan doona wasiirada
waxaa idin imaan doono madaxda kale ee dawladda, waxaa idin imaan doono madaxda bulshada, dadka jaamacadaha ka socdo iyo dadka warbaahinta ka socdo way idin imaan doonaan maalmaha uu socdo farshaxanka. waxaan idinka sugaynaa oo matxafka ka sugaynaa in naloo sheego waxyaabaha lagu dhiirigelin karo hawshan weyn ee aad soo qabateen ee gacantiinna iyo maskaxdiinna iyo qalbigiinna ka timaaday. waxaan rabaa aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inuu halkan nala joogo saaxiibkay isla markaana madaxdayda wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka mudane xasan macalin maxamuud shaacali. mudane soo dhow. alxamdulilah rabbi alcaalamiin. marka ugu horraysa aad iyo aad waxaan u salaamayaa wasiirka saaxiibkay wasiirka waxbarashada tacliinta sare hidaha iyo tacliinta sare saaxiibkay faarax cabdulqaadir. waxaan aad iyo sidoo kale u salaamayaa maamulka madxafka oo runtii spacekan iyo u sameeyey dhallinyarada iyo dhiirigelintan. waxaan salaamayaa dhallinyarada maanta halkan ku soo bandhigtay hibadooda ilaahay siiyey ayaan salaamayaa. aad iyo aad runtii u mahadsan tihiin. waxaan dareemayaa markii laga yimaado farshaxanka iyo sidaad u cabbirteen hibadiinna saa u cabbirteen, waxaan dareemayaa dhallinyaradu inay soo dhiiratay oo ay runtii dareenkooda cabbirayaan oo ay bulshadooda u soo bandhigayaan oo maalmihii mugdiga ahaa ee cabsida laga soo baxay oo loo soo baxay maalmihii fanka iyo qofku inuu mataqaana naftiisa cabbiro iyo dareenkiisa. aad iyo aad ay runtii dhallinyaradu runtii meel kasta u yihiin inay waddankan ka tarjumaan wax wanaagsanna ay uga tarjumaan. waxaan aad ugu faraxsanahay inay soo noolaatay madxafkii inuu soo noolaaday hawshiisana uu haysto si gaar ah. mar labaad waxaan ugu mahad celinayaa wasiirka oo runtii isku howlay hawshaas u istaagay iyo maamulka dhammaantood waan uga mahad celinayaa iyo sbeysiska iyo fursadaha ay dhallinyarada siiyeen oo runtii Soomaaliya waxa uu laga soo bandhigaa mar walbeeto ama laga soo bandhigi jiray foolxumooyin aan loo dul qaadan karin oo bini'aadanimada ka baxsan. waxaan u malaynaa tii bini'aadanimada ahayd oo runta ahayd inay noo soo noqonayso oo dadkii insaanka ahay u soo ekaanayno. arrintaasna waxaan ilaahay bacdigiis waxaan uga mahad celinaa wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare iyo maamulka madxafkuna hawshii runtii loo aasaasay maanta ayuu gudanayaa iyo maalmo la mida ayuu samaynayaa. anigana farxad ayay ii tahay inaan ka soo qayb galo oo aan noqdo weliba dadkii maanta ugu soo horreeyey. wasiir waxaan rabaa inaan kuu sheego saaka dhallinyaradu say u abaabulan yihiin saakay salaaddii subax laga bilaabin la hadda way daba taagnaayeen sidaan u soo xaadiro oonu imaado weliba dhallinyaradii wasaaradda ka tirsaneed cadaaladda sida gaar ahaan gabdhihii halkaan inaan imaado ka soo qayb galo. marka abaabulkaas iyo isku xirnaantaas aad iyo aadaan u bogaadinaya. aad iyo aad u mahadsan tihiin. waxaan haddana u sii gudbinayaa wasiirka dhallinyarada oo asagana wakhtigiisii ku yimid. wasiir soo dhowow. bismillah alxamdulilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. ugu horeyn xubnaha golaha wasiirada ugu horeeyo wasiirka maanta madashaan aan martida u nahay odayga ka ah ustaad faarax wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare. saas la mid ah wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya, agaasimaha madxafka qaranka ama gudoomiyaha iyo dhammaan mas'uuliyiinta halkan ee ururada bulshada, saxaafadda iyo dhalinyarada farshaxmiistayaasha ee aan maanta ayagu laftoodu qayb uga nahay martida ee soo bandhigayo maxay tahay hal abuurkooda iyo xirfadahooda. dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. hadalka intiisa ugu badan ama nuxurkiisa wasiir xasana inoo dhameeyey. aniguna waxaan rabaa inaan ka iraahdo qaybteeda runtii ka wasiir dhalinyaro ahaan
codkiina anigoo ku hadlayo waxaan aad ugu faraxsanahay maanta munaasabadan dhalinyarada ay maxay toole ku soo bandhigayaan iyo madxafka qaranka oo runtii aan uga mahad celinayn gudoomiyaha isaguna sida uu mar walba u dhiirigeliyay aniga waxay ii tahay booqashadeeda labaad sanadkii horena saan oo kale waxaan uga qayb galay bandhigan oo kale markii labaad ay ii tahay farxad gaar ah runtii waxyaalahan aad uga mahad celinayo xaruntan waxay tahay fursadda ugu badan boqolkiiba 95 in ka badan dadka ay fursadda siiyeen inay ku soo bandhigaan hibadooda iyo farshaxankooda waxay yihiin dhalinyarada runtii waxaan leenahay aad u mahadsan tahay cid kasta iyo dadaal kasto lagu dhiirigelinayo dhalinyarada Soomaaliyeed iyo qofkii tilaabo hore ugu qaadaba saasile madaxan u mahad celinaynaa asaguna uu nagala joogo wasaaradda odaygeeda waxbarashada Ustaad Faarax oo asaguna ah aabaha tacliinta Soomaaliya ah nin mar waliba asaguna garab istaag badan u muujiyo dhalinyarada Soomaaliyeed kuwada waxbarashada ku jira kuwada hibadaha iyo hal abuurka leh asaguna u mahad celinaynaa sida mar waliba ay mataqaana garab ay u siiyaan dhalinyaradu inay fursad u helaan madalaha sidaan oo kale oo qaranka ah jaanis weyn ay u tahay waxaan rabaa saas lamida inaan ayaguna u mahad celiyo dhalinyaradu abaabulka lahaa runtii ayaguna aad isu xilqaamay in programkan sida quruxda badan wasiirada ugu tunka weynaa in ay keenaan ayaguna waa ku mahadsan yihiin aan leeyahay dhalinyarada abaabulkan iyo juhdigan ku bixisay iyo guud ahaan agaasinka iyo gudoonka madxafka qaranka oo ayaguna qayb weyn ka ahaa arinkan maanta aan u madalsanahay inaan ka soo qayb galno waxaan rabaa saas si lamid ah inaan u mahad celiyo ayaguna dhalinyarada Soomaaliyeed ee hal abuurayaasha farshaxamiistayaasha kuwa hibada iyo mataqaana ilaahay ugu maneystay farshaxankaba ayaguna inaan iraahdo waad maasantihiin sidaad mar walba aad ugu heelantihiin dalkiina quruxda dhaqanka taariikhda uu dalkiina ku sultay ama uu leeyahay inaad dib gacantiina ugu soo nooleysaan aad u qortaan waad ku maasantihiin dadaalkiina halkaas ka sii haaya nasiib kale yahay in anoo codkiina ku hadlaayo dhalinyaradu maanta halkan farshaxanka ah inaan fursadan u helo aan maxay tolo idin kor istaago waxaan insha Allah noqon doonaa mar walbana saaxiibka qaybkeedin kala ah waxaan rabaa inaan maxay tolo ku soo dhaweeyo maamada gobolka Banaadir wax badan ka soo qabatay ururka gobolka ururada arrimaha bulshada iyo haweenkaba muddo badan maxay toole ahayd qof aad active u ah socialka waxa sharaf weyn ah inaan ka soo qayb galo madxafkan ay gabdhaha Soomaaliyeed ku soo bandhigeen wax mid kale waxaan leeyahay irid furan lama gale wiji furana la galaa marka hore waxaan aad ugu mahad celinayaa agaasimaha madxafka oo isku kaaya keenay oo fikradan aad u quruxda badanna keenay oo si nabada wax la isugu sheegayo quruxda iyo nabadii dhalatana ay meesha ka muuqato annaga hadaan nahay gobolka Banaadir higsigeena waxa waaye horumar loo dhan yahay tanna waxay noo muujinaysaa horumar loo dhan yahay inay tahay waxaana rajaynayaa insha Allah gobolka Banaadir 20 degmood inaan marka soo qayb galno haday tahay dhalinyarada haday tahay haweenka maanta luqadda Ingiriisiga iyo afka Soomaaliga gabaya ee lagu soo bandhigay runtii wax xun ma aha laakiin luqadda rasmiga ee wadankan aan isku afgarano nationalka waa luqadda af Soomaaliga ah iyadana waxaan rajaynayaa markii wax la soo bandhigayo qayb aad weyn inay ka tahay dhalinyarada waxyaabaha ma aragtay horumarka la internationalka ay noo sameeyeen runtii waa wax fiican oo adduunkan kaga qayb gali karo laakiin dhaxdeena gobolada dhaqamada u gaarka ah hidaha u gaarka ah ciyaarta u gaarka ah in aan inta isugu imaano isugu soo bandhigno isugu soo dhawaanaano u baahanahay mustaqbalka hadii Ilaahay idmo waxaan aad ugu mahad celinayaa wasiirka waxbarashada maanta inaan ma aragtay oo meeshaan yimaado si fiican u dhageysto dumar badan oo aad u dadaalaya jiro xitaa qoray af Soomaali ku qoray suul dhabaalaha
oo ay ka mid tahay Samiiro Ducaale meeshaas nala taagan tahay iyadana fursad in la siiyo aan ku soo bandhignana waa jeclaanahay mustaqbalka Samiiro waas artay hawsha inaan si fiican u wada wadnaan rabnaa insha Allah wasiirka cadaaladda dhalinyaradana waxaan u baahnaa marar badan aan raadihayo aniga waxaan ahay macallimad dabaasha gabdhaha iyo ilmaha barto haweenka iyo marka waxaan u baahanahay adigana dhinaca sportsiga dabaashka inaa qayb weyn nagala qaadatid haddii ilaahay idmo ana meeshaan walaalkay mar walbana garabkeena inaad tahan jeclahay haddii ilaahay idmo waa mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaasi kadib waxay noo suurta gashay inaynu la kulanno gabdhaha soo bandhigay farshaxankan qiimaha badan waxaana ay cabirayeen dareenkooda gaarka ah waxaana hadalladoodii ka mid ahaa magacaygu waa Hodan Cabdullaahi Maxamed waxaan ka mid ahay artistiyaasha oo halkan ku soo bandhigay sawirada farshaxanka badanaa sawiraanteedana waxay ka hadlayeen xuquuqda ama dumarka ama wax dumar ama ha ahaado culture-keena ama ha ahaado xuquuqda dumarka ama ha ahaado quruxda dumarka soo marka waxaan maanta ka qayb galaynay bandhigga oo lagu soo bandhigayay السلام عليكم مقعي ونور إيمان وحنا قبل مقال كان قداش إذا كم مقال سبيسي مقال كانوا قد قبلاي بدرجة هالأبور كقبلها أرتي سمية وحكوا ما هي هل دقيقة يكتر سكن هل دقيقة سكن أو سوكو بايا نلوش قبل سوماليات معني لها هذه تهاي شكل جورجا يشكل بنانكا سو كلو حان كبرنا كشرة قبل فرحسن أو مقالة الشوجا قبل هلوك الفرسان مقالة الشوجا قبل شقينا أو جورجا أنت كرنا قبل مرسنا قسل يو إعلان وحيابها صار إنه حياة وحيابي سومالي أي مرسن تختي أما أي سمين شرين لكن هذا كذا برقاي سببها سانا عن قبناين عدد وحسوسينه سيدا كلام عن كم إنه كشرة هويو أنت سمعنا سأقول جد شوكتا أيضا ولي بنا المهنة كعنت كويسة كعنت كلنا أنت كسمعنا سا resilience كأيه وحيابها قبله سوماليات أي هبد أوليه بيتمت هاي magacaygu waa Bushra Maxamed Maxamuud waxaan ahay sawir qaade iyo qoraa gabayana waan ahay halkan maanta waxaan isugu nimaanay inaan ku soo bandhigno farshaxankeena inagoo ah koox dumar ah oo dhalinyaro ah waxaan aad ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqdo sababtoo ah waxaan weligay ku hamin jiray waxay ahayd in aan adduunka u soo gudbiyo qaabkan aniga u arko dunida inaan marka qaabkan adduunka u arko aan u soo bandhigo adduunka anigoo la jooga dumar kale macno weyn ay sameynaysaa macnahaas oo ah inaan ku dareemo walaaltinimada iyo gargaarka ay dumarku isku leeyihiin iyo qaabka ay wax walba quruxa isu wada ag istaagaan ama isu garab istaagaan sawirada amaanta soo bandhigay kulligood waxay tusinayaan waxyaabo dhacdooyin yaryar ee maalinle ah ee nolosheena ka dhaca haddana aanan u fiirsan amana aanan indhaha la raacin marka indhaha la raacdana ay macno weyn ku fadhiyaan balse ay qof walba iska indha tirto qiimahoodana aanan si fiican looga hadlin dhacdooyinkaas yaryar waxay sameeyaan mustaqbalka amaanta arkaayana waa daqiiqada amaanta haysto waa mahadsantihiin magacaygu waa Faadimo Anis Cusmaan maanta waxaan ka mid ahay artistiyaasha oo madxafka qaranka sawiradooda ku soo bandhigeen waa bandhig u gaar ah gabdhaha artistiyaasha ah fotografistiyaasha ah filmmakerka ah storytellerka ah aad ugu faraxsanahay inaan fursadan helnay aniga maanta waxaan ku soo bandhigay 30 sawir oo ka mid ah 99 sawir oo challenge ah oo daily soconayay marka aad ugu faraxsanahay gabdhaha artistiyaasha waxaan ku dhiirigelinaa in ay xirfadooda aaminaan isku kalsoonaadaan xirfadooda soo bandhigaan sidoo kale ay yeeshaan xirfad oo iyaga ay adduunka ay kula communicate gareen السلام عليكم مقعي وزهراء عبد الحاجي سودو برنامج كمانتي كدعايو مذهب كقرنك وحلو سو بندقايا هل أبوردا خاصة هل أبوردا قبلها سوماليات أنا وحنكو سو بندقايا وقبل جيجان وفي إنجليزي أنكو قري قبل وحكو ترجمايا دمرك الصوماليات حالدا كلا دوان سومرين waxaan ko u sii gudagalayaa horta dumarka Soomaaliyeed intii dagaalada dhicin ka hor nolosha sidee ahayd waagaas dumarku waxay ahaayeen dumar iska xaraga badan quruxda jecel inay dahab iyo
wax dhaldhalaalaya iyo qurux badan iyo ilmo yaryar oo timaha tidcan sida qaasatan gabdhaha laakiin dagaaladii markay dhaceen kadib gabadhii xataa boqolkii geela laga bixin jiray ayaa daruuf iyo dhibaatooyin badan la kulantay hooyooyinkeeni dhibaatooyin badan ay soo wajaheen marka waxaa meeshaan ka aragtaa waxaa waaye xaaladaha kala duwan hadda waxaan ka soo qaadayaa oo kaleeto markii ay dagaalada dhaceen waxay ku qasbanaadeen inay mustaqbalka ka dhisaan waxyaabihii ka soo haray quruxdii iyo wanaaggii waaga hore inay ku kabaan xaaladda hadda jirto marka hadda dumarka Soomaaliyeed xaaladooda waa sidee hadda waa dumar dhiiran waa dumar aad arkaysa karti badan waa dumar ku dhiiranayo inay horumar sameeyaan inay shaqeeyaan sida aragta programka dhowr gabdhood ayaa wax soo jeediyay waxay soo bandhigeen waa sawiradii ay qaadeen iyo farshaxankii ay soo sameeyeen taasna waxay tusaysaa dhiiranaanta ee dumarka Soomaaliyeed markasta ku dhiiranayaan inay shaqo fiican qabtaan inay mustaqbal fiican sameeyaan runtii markii la fiiriyo dumarka Soomaaliyeed waa dadka isku hayo ummadda Soomaaliyeed waa laf dhabarka ummadda Soomaaliyeed waa hooyooyin waa walaalahaaga waa gabadhaada marka taasuu ka tarjumaya gabaygayga xaaladda hadda la taagan yahay iyo mustaqbalka aan rajaynayno marka waxayni markii la isku soo daro wixii hore iyo wixii hadda iyo wixii la soo maray iyo tanaan u socono dhammaan waxaa la iskugu arunaa waa jiilka dambe ee dumarka Soomaaliyeed ama gabdhaha Soomaaliyeed anagana waxaan u nahay tusaale yani inaan mustaqbalka fog inaan yani aan rabno gabdhaha inta hadda aan joogno in ka badan inay gaaraan insha Allah mahadsanid bandhigan farshaxanka ah oo siday fariin nabadeed aqoon iyo adkaysiga dhaqanka Soomaaliyeed ayaa laga daafuray magaalada Muqdisho waxa uuna socon doonaa ilaa maalmaha soo socda sidoo kale goobtaasi waxaa lagu soo bandhigay buraanbur aad u qurux badan oo lagu matalayay dhaqanka Soomaaliyeed bisi waxa laga bilaabaynin barakamaale bisi waxa laga bilaabaynin barakamaale birweeyaan oo islaahan ko badbaadiya xafladda ka bilaawda rabbiyo badbaadayeel bisi waxa laga bilaabaynin barakamaale birweeyaan oo islaahan ko badbaadiya xafladda ka bilaawda rabbiyo badbaadayeel halula dalula dalula alula lula lula بسكو بقول يا توبة هوا بلا يا عيلس بسكو بقول يا توبة هوا بلا يا عيلس وحيل جبه هذه أنا هوي بولا عليان هوين كبارك هيسن ربي يوبد بهذيل بسكو بقول يا توبة هوا بلا يا عيلس وحيل جبه هذه أنا هوي بولا عليان هوين كبارك هيسن ربي يوبد بهذيل الولا الدلولا الدلولا الولا لولا لولا علنك Soomaaliye heedo carshiga ka nuur calanka Soomaaliye heedo carshiga ka nuur cirkaadu egtahay rabbi yow laga cabsado kuwii ku caawimilaha ka maajisaan cirkaadu egtahay rabbi yow laga cabsado anaga kugu ceeshnay ubadkeena kugu cayeelay cirkaadu egtahay rabbi yow laga cabsado calanka Soomaaliye heedo carshiga ka nuur cirkaadu egtahay rabbi yow laga cabsado kuwii ku caawimilaha ka maajisaan anaga kugu ceeshnay ubadkeena kugu cayeelay cirkaadu egtahay rabbi yow laga cabsado alula dalula dalula alula lula lula Somali kama soho isinjigooda ayin Somali kala soho isinjigooda sida runta farshaxanada soo saaro hoosaid lagu yaqaan farshaxan soo saaro hoosaid loo yaqaan hidaha iyo dhaqanka ya haga samaynayaan salaamay hela rabbigayga
سادك سلام عليكم صومالي ساتين هوسقا سانا وهاوين كوسيداتين ayagan kala sahari wadahankeena sida runta ayagan kala sahari wadahankeena sida runta Soomaali kala soo cinsinjigooda sida runta farshaxan soo saharo miyuu saweey haweenka sidiisa waaynaanu sarakacna salaama ku jooga meeshaad ku sooganteen alula dalula dalula alula lula lula maxamed axmed siyaad madaxafka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.